markale xalay Manchester City kulankeeda saddexaad oo isku xigay daroogash darad markaa dhahay Manchester City tartan uma socoto dad badan waxay dhaheen ma beentaada waaye waa arkay luuqeeda dad igala soo hadlaa iyagoo dhahay Manchester City reelkan waa iyada City way adag tahay City kan waaye wax baasa isku dardarteen laakiin runta waa lama xuraan darad waa idin sheegay maantana markale aan idin sheegaya horyaalkan waa Gunners hormarisa uu si hambaliyo Arsenal markaa uu leeyahay saas waa Manchester City xalay waxaa la ciyaaraysay Brighton hadda waa Brighton koox iska meel dhaxaad waay koox adagna ma ahan heerka hoosena ma ahan waa koox oo aan saas u xifaaltama karin sidoo kale waa aragtaa calendarka meesha ka joogto marka iyadoo saas tahay Manchester City adkeed oo horyaala u tartama dhahaysay oo kulan walba isdiyaarinaysay oo Arsenal challenge gareyna Arsenal push gareyna markasta la taagneed waxay awoodi la aaday xitaa inay soo dhaafto Brighton waana sababta ku leeyahay Arsenal sanadkan nasiibka buwad hada maqla jirtay Arsenal nasiibka diiday hada maqla jirtay sanadkan Arsenal nasiibka buwad iyada nasiibka wad waxaan ku ogaan kartaa kulamadan oo Arsenal hadda ciyaaraysay xitaa Arsenal iyadoo ka jajaban tahay way isfurdaaminays Arsenal oo xidigeeda inta badan dhaabac ah way isfurdaaminays hadda Arsenal shan oo hadda diyaarka oo Arsenal shan oo hadda horyaalkan bilaha yar ilaa bisha afraad waa loo kala baxaya oo ka soo hartay ma aragtaa Arsenal way soo wada laabanaysaa hadda kulli inta dhaawac ka ahaa Gunners way soo laabteen kaliya Arsenal hadda waxay u dhutinaysaa oo ka maqan oo xibla maqan hadii la dhahay Calavoria iyo Masquera labadaas daafac Kai Havertz uu soo laabtay Jesus uu soo laabtay ciyaartoydii kale oo dhan way soo laabatay Arsenal kaliya hadda waxay tabaysaa leeyahay Ricardo Calavoria iyo Masquera labadan daafac ana bishan haday dhahada bishan January biswa bishan January haday dhamaad Calavoria Masquera iyagana way soo laabanayaan wax kale oo Arsenal ka caabinay waxay tahay Big Six-ka ama kooxooyinka Big Six-ka ee horyaalka Premier League saddex koox oo soo hartay Liverpool haday caawa ka talaabsata Arsenal final ay u tahay runtii igu imaaw Arsenal haday caawa Liverpool ka taqluusto oo ay Liverpool ka talaabsata oo Arsenal caawa badisa taas waxay ka dhigan tahay Arsenal in horyaalkan ku guuleysatay waxa isku soo laabanayna iyo wax kala aan isweydiinayna iyo meesha miyaalan Manchester City xalay Brighton ay la dheeshay kadib goal penalty waxa uu ansixiyay ninkii la yiraahday Erling Haaland penalty markuu dhaliyay Manchester City mu'aaradkii oo dhan gambarka way ka kaceen anaa koow ka ah ilmaha maxaawayaas dhaynay oo saan gool laga dhalinay ani waxa bisugay Brighton waxay ku bilowday ciyaarta dardar iyo argagaxay ku bilowday waxa sugay Arsenal Brighton in xilfaha u taagtay Man City oo qaybta horeba iyada 2 gool iyo 3 gool wax la mid ah ay ka dhalis laakiin Brighton iyada penalty laga dhali waxaas dhahay ilmaha awal ashma aheene maraday kaaga dhicinaas dhahay isku sheega waxa iska saartay Manchester United oo hal gool lagu lahaa cunugii oo Ivan mal dhahay cunugii Arsenal ku gaadhay hal gool iska dhali kaasa gambar dhigtay gambarkii aan dhigtay iyadana Manchester United kan baagay sameysay Benjamin Sesko 2 gool dalaq damiinkii aba kacay habeenka meel u socday damiinka kacay Benjamin Sesko oo galabta sanadkan dhan 2 gool dhali hal habeen 2 gool dhali ilmi inuu ka dhali oo bareejay oo u saari hayaas United way isfurdaamisay ahaan meel kasta tagtay gambarka ma lagu geedinaa isla kan meesha saa lagu soo tuuray hadana United ku la tuureys maxaa sama soconaysa dhayniyo hal ma ahan waa ordi Chelsea reed card qaadatay iyadii loo cantuino labi hala looga badi Chelsea inta ku mashquulsanaa United waa fiiriyay gooshi waa laga keenay iyadan Mitoma
arkaas laacib wuu dhaaf ninkaas Mitoma laacibnimo wuu dhaaf waa wax kale niyo Mitoma kabtiisa ma gash war Mitoma ii soo qaada Mitoma anaa u baahan Arsenal ay keenay Mitoma da'waay waxaas dhay waa ku ogaay Trossard baa soo daa soo qaadanay waanu ku xamaalnay shaqo fiican oo noo qabtay Reaalka ilaa meeshana keenay iyo shaqadu qabtay waa aragtay marka ciyaartooyda xirfadda ay leeyihiin oo maskaxdooda ay dhambalan tahay oo xidigo oo maskax ka shaqeeya ay yihiin da'meelis hada Trossard waa nin age ah haddana Arsenal weeraryahanka ugu fiican waqtigan joogo waxaan hada Leo Trossard waa nin da' ah haddana Arsenal weeraryahanka ugu fiican waqtigan waa Leo Trossard marka waa nin xirfad dabiici ah haysta waa nin maskaxdiisa sida robotka oo kale u shaqeysa waa nin kubadda meeshuu marinahay iyo meeshuu u wada uu og yahay intuusan ku dhawaaqin kor dhaqaaqa kooxdu wuxuu og leeyahay Leo Trossard kubadda meeshuu u wada iyo meeshuu ka keenay yani waa nin xirfad ah maskax dabiici u leeyahay xirfad dabiici u leeyahay maskaxiyaan u diyaarsan yahay skills ahaan u diyaarsan yahay Mitoma waa sidoo kale waa nin diyaarsan wax ma ka haleynaa nin haddii maskaxiyaan u diyaarsan yahay xirfadiisan ay natural tahay wax ma ka haleynaa da waxay doontaa Messi baad waa 40 jir gimbiski iyo skillski iyo baasku sameynay waa arag Cristiano Ronaldo waa 40 iyo abaafu jira goolasha saasoo u fardhinaya marka nin hadduu mar da yahay oo xirfadiisa ay xirfad natural tahay ama xirfad pure ah uu leeyahay wax ma ka dhibays Mitoma uu antubi United wuxuu dhahay meeshan hal dhibac bes ka badan ma qaadan kartid meeshan aad joogo dadaalkii Benjamin Sesko iyo bandhigii labadiisa gool waxa la dhahay gool ma jirto warayo dhamaan Manchester City mar kale ay dharow gashay hadda waa kulankii saddexaad oo isku xiga oo ay dharow galayso Manchester City sidoo kale Manchester United iyadana waa sidoo kale dharowgay iska wadataa Chelsea dharoway sii wadan lahayd dharowgiyaaba loo diiday waa loo cantuugay maxaa ku dhac Chelsea algoola laga dhaliyay way keentay waysa halkii goolay keentay waa loo saari bye bye Allah Chelsea saasay ugu dhamaatay Manchester United ab ku roon oo hal dhibac shaqeystay Chelsea halkii dhibcood hata waa loo diiday marka Chelsea oo sanadkan dhan fiicaneed hadda United oo sanadkan dhan xumeed aaba ka fiican leeyahay Chelsea oo wax meesha u yaala ma laha horyaalkan waa horyaal xaaladiisa allo sahal ah mala saadalin kar meesha loo wada mal ogaan kar United oo galab hadda qaladka ugu weyn oo Chelsea gashay macalinka inay buriso way ku qaldaneed Chelsea macalinka xalay ciyaaradu joogay laba koob oo qaaday sanadkan xitaa Champions League uu fiican yahay Premier League 5 ilaa 6 ma ka tagayni oo ku xifaaltamay booska shanaad iyo booska lixaad sababta loo buriyana ma sheegi karo waa la buriyaa maqli wax loo buri ma og meesha loo wada qofkay soo wada iga og haday ninka fiican ninkan keenaya Enzo ninka fiican haday keenaya waa isla aragnaa yani taas waxay ka dhigan tahay kooxdan Chelsea guulo marab macallin fiican marab Enzo Mascardo macallin ka fiican ma keeni kartay Chelsea macallinkan classico ahaa kooxda meel dhaxaad uu ku hayay hal ciyaaradu joogay bandhigiisa iyo wax qabadkiisana waa 100% iyaga ku fudaaday marka waxa leeyahay idinta la macsalaam marka Arsenal ay final ay dheelayso Arsenal haddii Liverpool loo qabeeyo oo Arsenal badis marad stadium lagu ciyaarayo wax warwar ah ma jiro xidiga Arsenal waa diyaar Arsenal marka Arteta ka badin kara leeyahay Arteta haddii maskaxdiisa ay u degsan tahay oo soo cabin madaxweynkan waa cabtooy oo maleynaa Arteta haddii jawigiisa fiican yahay Liverpool kan bi hore loo qabeynaa haddana saadalina ciyaartan Liverpool ugu yaraan 3 gool lagu garaaca 3 iyo wax ka badan lagu xaaqa Liverpool hadda ku dhaca 3 gool wax ka yar haddii Liverpool looga badi gool ma guushas ma u dabaaldegayaan 3 gool wax ka badan aan rabaa Arsenalna fursad waxay ku haystaa horyaalka ay ku sii dheereysat marka saaxiibadeed aad baad u mahadsantiin Arsenal fans meel walba joogtaan iyo saaxiibada kubadda cagta meel walba joogtiin madaxa ay saarantiin muuqaalka meel foka la gaarsiiyay beejkan hal kala kiciyay
ee subscribe